اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدوميها قبلك ماريها هامها ماري كحجينك يو مذحة دبدمسك يو تليها إميجريشنك عاديات ما نقصد ويليا السفر كي يروحوا دارنا سيدو شيء قدوميه يجعل صوت البدي ويري كالنا لا يجعل بالواحد وهينو يصير خطرته بربرة تعلو مقاساسا نكون نمد سيف عم نوصل ويين دنياش ورم بين نوشريين يمكن شير ما كسب حناي يمكن وحن كتشرنا محلنا صعد كي أما سيدلو إيجي لها بالوحي هيان يو وحى كديمان يهابك وشقيان runtii maarayaha markaykanka iyo madaxa dawladda miskuwa si fiican ugu soo raaniyay gudoomiyaha iyo madaxa immigration-ka waxaan u nimid inaan talada wadaagno dabku intaanu iman baa rabay in laga hortago marka shirkeenu wuxuu daarnaa bal sidii looga hortagi lahaa intaanu dabiman iyo inaan isla eegno wixii dhiman marka marrabaad iyo marsaddexaad ba aad iyo aad baan inteeda ka joogtaan ugu amaanay habka inoo soo dhaweeyeen waanu balanay inaan joogtayno maxaa la yiraahdaa araga wada shaqeynta waxaanu isla qaadanay in dabkana loo soo wada gurmado haddii la soo baahdo haddii dekedu wax ka noqoto ciidanka dekedu haddii arkaan inaan u taakale inay saddexda kale u yeedhaan dabdamiska qaranka haddii saas leeg inay qoolada kale u yeedhaan marka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa si fiican inoo soo dhaweeyeen shirka fiican inoo qabteen dalbashaas fiican inoo dalbadeen anaan soo ajiibnay had iyo jeerna socotay noqon doonto wax joogsanay maaha waxaa gobolka saaxil magaalada madaxda berbera nagu soo booqday oo safar shaqo noogu yimid taliyaha ciidanka dawladda qaranka sareeyo guuto axmed maxamed xasan axmed sawaaxili iyo tiim uu hogaaminayo oo ka tirsan dawladda qaranka ilaa saaka waxaanu xafiiska gobolkaanu shaqada ka soo bilownay halkaa waxaanu shir ku galnay dhammaanba daneeyayaasha dabka hadday tahay shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga aba hadda waxaanu joognaa haamaha shidaalka ee qaranka BOT halkan waxaa jooga maarayihii iyo maariye ku-xigeenkii taliyuhu runtii wuxuu ku urgelayay nidaamka dabdamiska ee gobolka hadday tahay public iyo private ba shirka waxaa qayb ka ahaa dhammaanba maarayayaasha dahabshiil somgas dekeda maarayaha dekeda Omar shirkadda leydhka ee berbera maarayaha dekeda maarayaha haamaha uu hadda joogno meeshiisa marka runtii taliyaha waxaanu isla qaadanay oo runtii ka wada hadalay sidii marka koowaad gobolkan saaxil oo gobol muhiim ah u yeelan lahaa dabdamis muxuu ahaa center weyn oo dabdamis oo ku filan uu yeelan lahaa inta ka horeysana inta hadda la haysto ama ay dawliga ama shicibku leeyihiin sidii loo midayn lahaa waxaa soo booqday oo si sharaf leh soo booqday taliyaha ciidanka dabdamiska General Axmed Sawaaxili runtii aad iyo aad bay sharaf noogu tahay qiimeyn uu soo siiyay taxqiilin buu soo siiyay in maanta noo yimaado oo ka wada hadalno arrinta ammaanka ee dabka maadaama ay yihiin dad khabiir u ah khabiiriin ku ah dabka marka si fiican buu muxuu ahaa booqashada nagu socotay waxaan ugu soo wareejinay xeradoo dhan ku soo wareejinay wixii gadoole lahayna uu noo sheegay runtii kale waa nin expert ah waan ka qaadanaynaa marka kulli waxay noqon doontaa sidii ay beedmo inaanu sii taxqiilino sii wada shaqeyno si maadaama ay tahay halkan halbowlihii dhaqaalaha